xiro nimanka askarta lacagaha lagu soo kireeyo haddii lacagahaas qareeno iyo wakiilo iyo looyaro lagu qabsado xaafadan waxay yeelan kartaa xildhibaan Soomaali ah oo Soomaali doortaan oo mar dambe aysan dhicin nin xildhibaan Soomaali ah oo cod madow ku tashto sida hadda muuqato ninka xildhibaanka xaafada ka ah codkana wuxuu u raadsadaa madowga cadka lacagta uu ku campaign gareynayna wuxuu ka soo raadsadaa Soomaalida maalin walbana calaacal been oo waxba ka jirin iyo la yimaada Soomaalinimo maalinta la doortaana Soomaalida ugu dambayso Kikomba hadii gubato uu taagan yahay wadooyin hadii la dhisaayo xaafadahaas madowga naga wada fiican ganacsiga ugu badan kama kunjina wuxuu yaalaa Islii canshuurta saddexaad ugu farada badan oo wadankan laga qaado Islii laga qaadaa kow waxa Mombasa portka bahasha dekada laba waxa CBD Nairobi CBD oo townka waay saddex xaafada Islii waay xaafadka canshuur bixin badan number 3 ay ku jiraan adoo waxaa soo canshuur bixinaya adoo waxaa soo hanti ay xaafadaada taalo in xildhibaan adiga kugu abtirsado oo Soomaali ah oo madow u danqado adigana uusan ku danqanin xafiiska xildhibaanka qof Soomaali kama shaqeeyo hal wiil bas ka shaqeeyo Soomaali ah askarta xaafada askarta ka ah hal qof oo ra'iisle kuma jiro Gaarisa iyo Wajeer iyo Mandera nogala keenaa hadii Soomaali loo baahdo dadka Islii jooga waa inay marka xaafada lahaanshaheeda ay hantaan muujiyaan askarta ay qortaan militariga ay qortaan xafiisyada dawladda waa inuu fadhiistaa nin ataqaano meel uu ka yimid Wajeer iyo Gaarisa ha aadeen Wajeer iyo Gaarisa iyo Mandera dadkaas u baahan ra'iisli waxay u baahan tahay ra'iisli dhaqanka Islii waxa fahmi kara qof ra'iisli ah dibka maamada Islii degan ku nool waxa fahmi kara wiil ra'iisli ah ninka Mombasa joogo iyo ninka Kakamega joogo iyo ninka Nyanza joogo oo wadankan ku leeyahay inay ayagana leeyihiin ay aqoonsadaan xildhibaan ayaga ay doorteen ay soo saartaan codkooda dambana uusan seexanin oo qof kura heli karo uusan kura la'aan noqonin qof kura haystana uusan laynka ka caajisin laynka dheerarkiisa aysan dhicin qof kala dambo Islii laga qaaday in kuradiisa la geeyo Gaarisa Wajeer ama Mandera waa gartay hadii ay dhacdo qorshahan aad wadid ee ah in xaafada Islii laga jaro degmada Kamakuji maxay tahay faa'iidada ugu jirta xaafada maxay tahay khasaaraha ku iman kara faa'iidada ugu jirto Soomaalida xaafada degan kaduu qorshahan guuleysto koo waxa jira wax la yiraahdo CDF